بسم الله dadka Soomaalida waan salaamay marka dhibi dhacdo waxa wanaagsan in intaad ka oran karto si ajar lagaaga qoro oo nafana u badbaadan hadad badbaadin karto waa idin salaamahaya waxaan lahaa madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Ciro iyo xukuumaddiisa haddii ay go'o Hargeysa mathematics aad u aragtaan inay shaqan weydo waxaan idin hayaa ruqsi mathematics carto nimankii gartay ruqsi magaasha la yiraahdo taqaana waa nimankii biological I don't know waxay adeegsadeen duurka bahalka la yiraahdo hoostiisa in biyo laga helo ee rujiye ee biyaha ka helay marka waxaan doonayaa mathematics ka beriga lagu helay ina deysaan idin soo gudbiyo haddana soo noqdo buugan maanta dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmeen dhibtaad aragtay haddii ay doonto ka soo socoto ee labada ugaas maanta aad arkaysaan declare a war ay dhahdeen bal buugan ummadii Soomaaliyeed yaa bantahay xeerkan reer ku leeyahay maxaa ku duugan maxaa ku hoos duugan bal hadda aynu isla eegno qofkii aan akhriyino bal si fiican u dhuux markaas aad fahmi doontaa xeerkani waxa uu ka turjumayay iyo cidda ka dambaysa xeerkan waxa lagu waxa 1840 something 60 waan ilaaway halka way sixi doonta waan eegi doonaa ku noqon doona ayaa buuraha la yiraahdo city ee imka Ethiopia ku yaala ayaa la fariistay 44 nin baan filaya 12 qoys ayaa haayeen xeerka halkaas lagu sameeyay qoys baa lagu talagalay markaa la yiraahdo Ciise ayaa lagu talagalay xeerka ilaa markaa wuu jiray dhibi kama dhicin meesha Seylac la yiraahdo aan u iman doono rabshadu ka taagan tahay way wada deganaayeen ilaa Dirdhabe deganaayeen iyo Djibouti area-daasi deganaayeen dakhil iyo dhulkaasi deganaayeen Ciise waligood iskumay qabanin waayo sida caadiga ah madax dhaqameedka ayaa xeerka reerka haya markay isqadaan ku kala saara xeerkaasi nothing to do with reer kale reer kastaana uu leeyahay hore idinku macneeyay marka dhibi ka dhex dhacdo ayaa waxay xeer ka leeyihiin cuqaasha iyo madax dhaqameedka ugu garnaqaan nothing else xeerkan haddaba waxaan saddexda dawladood isugu raacday hay'adda UNESCO ay loo geeyay iyo waxa loo geeyay waa maxay waxa beesha Samaroonku ay diidantahay aniguna aan arkayna waa maxay saashwatan waxa dabada ka riixay dawlad xeerkii reerka waa la siyaasadeeyay dawlad baa qaadatay dawladda golaheeda dhaqanka ama wasaaradeeda dhaqanka iyo hidaha iyo faafinta filay in la yiraahdo ayaa berber garaysay rag baa loo saaray xeerka buugi hore loo qoray 90s-kii la qoray ayaa la soo qaatay Cabdalle wariyihii aad garanaysaan ayaa isaguna buugu qoray la soo qaatay dabaday ka riixeen markaa hay'adii bay u geeyeen waxay raaciyeen qoraal oranaya haddaba eega map iyo qoraal ayay raaciyeen hay'adda UNESCO oo u qaabilsan UN-ta dhaqamada u qaabilsan mapkaas oo leeyihiin ilaa Ethiopia intay ka degaan ilaa Djibouti ilaa Somaliland intay ka degaan bay ku muujinayeen mapkaas waa lagu aqoonsaday marka dawlad la aqoonsanayo waxa la yiraahdaa territory-giina maapkiisa territory-giina xadkiina waa in la ogaado la keeno reerkana sidaas oo kale marka meel reer kula degan yahay adigu ma sheegan kartid map international kuma doonan kartid dawladana uma bandhigi kartid waxa dawladda Djibouti iyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia saddexda wasiir dhaqanka iyo hidaha saddexdaana waa loo yeelay waa laga tasdiiqiyay way saxeexeen iyagoo aan eegin dhulka ay saxeexayaan cidda degan iyo tirakoobka cidda degan waxay ku qiyaaseen nimanka u geeyay hay'adda internationalka under the UN-ta in around 2 million Somaliland ay yihiin dadka degan around 2 million eega 2 million anu soo noqdo balada tiradu intay tahay waxa ku jirta bullaxaar buu maapku gelaya meesha la yiraahdo berbere agteeda ayuu gelaya maapku marka ilaa intan gabiilay dusheeda dhulkan oo dhan maapku maraya Ethiopia halkaas ka gelaya marka wuu isu furan yahay ilaa Ethiopia wuu isu furan yahay
saylac lug haye dhulkan oo dhan maabkuu maraya meel meesha la yidhaaha boon iyo dhulkan boorama laga xukumo dushiisa ayuu maabku maraya bal eega maabka intaa gashaan waxaa ku qortaa maab xeer ciise ama ciise territory ku qoro eega maabka maababka ku jira ee lagu gudbiyey applicationkii loo gudbinaya hay-adda si ay ugu recognize garayso internationally saddexdan dowladoodna u recognize gareeyaan shuruudaha ku jiraan waan idinla wadaagi ee hay-addan internationalkii waxay u qabanaysa waxay ka rabaan markaad intaa eegto waxaa la geliyay markaa siyaasad iyo picture in la raaciyo territorygoodii lama eegin dhibta ka timaada haddaba ee ka timaada dhulkaa laleeyahay ay sheegteen iyagu saylaco ay lala degan yahay oo ay sheegteen marka meel lagula degan yahay adigu ma sheegan kartid buugna kuma sheegan kartid adduunkana uma gudbin kartid anaa leh marka lagula degan yahay waa inaad sheegto dhinacaad ka degan tahay ama aad sheegto inta percentageka aad ka degan tahay way wada sheegteen ba waa saylac bal saylac aynu u nimaado dad allo muslim allowna يعني قر وقرنق مسلمين وقرنق سيلع تبغى نقول 18 century 18 century 17 century 18 century 1860 1850 ninkii la oran jiray ugaas nuur waa Samaroon ugaasyada Samaroon ninkii boqorkii oromada ee ku soo duulay halkan dilay waxaan Samaroon Mililik 2 ninkii la dagaalamay waa ugaas nuur cismaaniyiinta waa ugaaska Samaroon dhammaantood eega anu meel kale ma eegin ingiriiska hortiina sharmaarka cali saalax oo reer burca oo ka ah amiirka dhowr iyo 30 sano 28 sanadood amiirka Ottoman Empire oo ahaa oo ka qabay ay soo seediyeen ugaas nuur oo Samaroon ugaaskiisa ah oo uu isagu waliba uu baritaaro ka dhigay oo uu ka sabooray xagga Cusmaaniyiinta deegaanka uu inuu ogol yahay deegaanka isagu ugaas waxa cadeynaysa ingiriisku markuu yimina saxeexa ninka ku qoran ugaaska kaliya ku qoran madax dhaqameedka ciise maaha ugaaska ku qoran waa Samaroon haddaba marka ilaa Mililig la dagaalamayo iyo boqorkii la oran jiray ay dileen waxa la oran jiray aboore miyo ha magaciisa waan idin xasuusan Samaroon baa kula dagaalamayay bal qolada ciise wax weydiiyay anigu waxba idin diidi kareen oo xaq u leedina degantiin bal idinku meesha ku maqnaydeen dawladahan Cismaaniyiinta iyo Ingiriis iyo markuu Mililig ku soo duulay saylac uu doonayay inuu qabsado waxa la dagaalamay gabaygiisa shiinleyda ee ugu horeeyay shiinley aynu maqallo gabayga ugu dheeree shiinleyda ugaas nuur buu ahaa ninkii kula dagaalamay ee ku dhintay ugaas nuur iyo ciidankiisa ahaa bal qolada ciise waxaan doonaynaa in aad idinku halka kula dagaalanteen Mililig iyo dawladahan kala dambeeyay inaan noo keentaan cadeynteedii anigu reer burcaan ahay idinma kala xigo idin kala hiilin maayo laakiin wixii cadaanka arkay uun baan idinkana idin leeyahay waa bar horta noo keeno waa qodobka labaad waa difaaci saylac ilaa waqtiga marka ka timaada halkaas waxaan idin weydiinaa intii ka dambeysay ee Ingiriis saylac baa degmad markuu Ingiriiska yimid degmad saylac baa Ottoman Empire-kii boorama ma jirin markaa doorashada gobol degma la isku xisaamin jiray saylac waxay degmo hoos tagta boorame ilaa iyo 1984 markii gobol loo aqoonsan 6 ayay ahayd waxay hoos martay saylac bal dib ugu noqday Ingiriiskii iyo ilaa dawladii hore ilaa 69 soo gaadhay baarlamaanka ka soo bixi jiray bal dadka oo eega 3 jibaar bay ka badan yihiin 4 jibaar bay ka badan yihiin 4 jibaar ayay ka badan yihiin reer saylac ciise ka badan yihiin iyadana waa qodob kale xagee jirteen haddaan meesha leedihiin intii Somaliland ay dhalatay hal nin baa soo saari kari wadeen baarlamaanka Somaliland haddaad tirakoobkii eegay magaalada saylac waxa ka dad badatay boon
oo ay iyadu hoos timaado oo samroon ku degan yihiin iyadana waan jeclaa cadaalad baan idinku garnaqayna iska keen raaci mayne binu axmed iyo walow aanay jirin wax binu axmed la yidhaahdaa dadka laga dhaadhiciyey ee ay madoobe dir ciise yahay halkuu binu axmed ka soo galayna aanan garanaynin ma garan karo laakiin su-aasha isweydiintani waxa weeye tirakoobka bal eega ma jabuuti baa uga guurteen ma etoobiya uga guurteen biyo la-aan iyo leydh la-aan iyo iskuul la-aan baa uga guurteen anyway waa ka maqantiin hal nin oo 5 kun kasoo baxayay ayaa somaliland kasoo saari kari weydeen what happened iyaguna imisay soo saareen how many 12 soo maaha ay soo saareen imise goor bay idinku labalaameen markaa including sayda oo degmo maxamed siyaad barre ka dhigay waa kasoo saari kari weydeen iyaduna waa su-aal isweydiin leh dowladaha hoose 200 baa lagu soo baxaa waa isla egtiin maantana maayarkii hore wuxuu ahaa reer awdal buu ahaa maantana idinkaa jooga bal waxaan doonayaa buuggan internationally waxa aad doonaysaan in la idinku aqoonsado oo buugga waxa ku qoran buurihii sid in la maalgeliyo waxa ku qoran oo qoladii UNESCO in la barotod garayn karo inay kharash la bixinayo mashaariica lagu horumarinayo buurihii city in lagu horumariyo mashruuc la siiya iyo soo mashaariic baa ku jirta hay'adda UN-ta yaa protect laga garaynaya markaa weeye yaa laga difaacaya weeye marka ay leeyihiin UNESCO waa la difaaci kara waa la protect garayn kara yaa protect garaynaya yaa si laga protect garaynaya ma Somaliland ma dowladda Soomaaliya ma reerka Samaroonka waxaan oo dhan dadka reer awdal mana waanay hadli karaynine way arkaan way ogyihiin waxay u dacwoon waayeen UNESCO waa laga dacwoon karaa waxa ku qoran waa ka soo dacwoon kartaan haddii aad diidantiin cidda la deganay maanta dowladda Somaliland waxay ahayd inay iyaga ugu garnaqdo midna u diidan midna inay UNESCO ay dacwad u qorto oo taado dhulkan waa la wada leeyahay mar haddii maamku sheeganayo ilaa berbere agteeda waxay ahayd inay dadkan maanta dhintayna idinkaa mas-uulka ah idinkaa mas-uuliyaddaa leh dad meel wada degan baa cid gaara siiseen oo cid gaara u ogolaateen cid gaara go ahead ka siiseen macnaheedu iyagu xeerka may ogolaaneen waxay ogolaadeen waxa loo gudbiyey ayay recognize kareen waa recognition ayay samaysay hay'addu dadka caynkaa magacaale ee dhulkaa degan maabkii loogu gudbiyey arjigii loo qoray in ayaa shuruudaha in la caawin karo in loo samayn karo mashaariic horta waxaan u dhamaa meesha u jiraa reer markaa boorama maxay arkeen dhulkaaga la international garaysanayo 3 dowladood 3 wasiir oo dhaqamada ah ayaa isugu tagay oo saxeexay 3 dowladood maxay dhahay xeer ciise iyo xeerkooda oo buugani qeexiyo xaflad loogu sameeyay tarigoodii sawirkoodiiba ayaa halkii chapter 5 eega muxuu idin sheegayaa sawir kuma soo waxa lagu abalay gareey eega internetka galo waxa ku qortaan xeer ciise map of xeer ciise ku qoray xeer ciise maamka idin soo baxa dhoosha yar yalowga ah bal halkay galayso ee badda ka galayso xagga berbere eega maamku intuu leeyahay ballaadhi oo eega maamabka la sawiray ee la raaciyay applicationkii bal hadda eega I don't know reer awdal miwaanay hadli kareen cid ka mutacallinsani ma jirto muddada xeerkaa la kala saxeexanayay ee waxaa la gudbinaya halkay ku maqnaan reer awdal Somaliland laftigeedu markii Soomaaliya iyo territory-gooda ay kala qoranayeen ee maamka ku darsanayeen ee ay waxaan oo dhan sameynayeen ee Djibouti dabada ka riixay dowlad baa dabada ka riixay anagay reer awdal waa loo xoog sheegtay wixii qabiilka iyo territory-ga qabiilka haba dowlad la geliyay iyo siyaasad la geliyay awood baa la isticmaalay dowladda Djibouti dowladda Ethiopia waa dowladda dabada ka waday wasiirkooda arrimaha dabada waday wasaaradooda dhaqanka hidaha iyo dhaqanka ayaa wada waxaan oo dhan sameynaysaa laakiin Samaroon iyagu dowlad ma haysan dowlad ka difaacda ama xaqooda oo u dhicisa ama maamka ka qabata loo sheeganayo ma haysan ilaa imankana dowlad Somaliland oo eegtay waxaan oo UNESCO intay arji u dirto tirada wixii la idin soo gudbiyay ka noqo weeye because of rishada maanta dhacday waxay ka timi waa halkaas ay ka timi hay'adda iyo dowladaha ka dambeeyay bay ka timi in maanta dadkani ay isku kacaan ay isu dhaartaan
wixii dambi ka yimaadana iyagaa leh dowladda Soomaaliland waxaan oran lahaa war balbuuga dib ugu noqdo eega war balbuugan eega waa laga soo dacwoon karaaba xitaa ku qoran haddii cid la joogto muddadaas ilaa waqtiga dhowrkaas sanadood wax ka dacwooday ma hayno way dowladda Soomaaliland ay dacwadu qori weyday u sheeg weyday dhulkan la wada degan yahay waliba majority cid kala tahay why intaasi waa intaan doonayay maanta inaan u soo gudbiyo waxaan oran lahaa madaxweyne Ciro iyadoo aan islahayn Peace Nobel Prize Norway ayuu dhowr sano ka bacdi qaadan doonaa oo nin nabadeed adahay ay dhiig faraha ku geliyeen maanta dhiig faraha ku geliyeen yaa ku geliyay inamadaad keensatay Sam Cabdiraxmaan Tuur waxaan ku qaban karaa haddaad qaadan lahayd fikradeyda iyo taladeyda qaadan lahayd maanta dhiig subag baad ku lahaan lahayd dhiig kuma lahaateen lug halkaad shalay joogtay iyo maanta halkuu geeyaa ku geeyay waxaan arkay lacagtii bangiga laga qaadayaa lagu dhintay waa lacagta loo qaadayaa biya laga guurayaa bal hadda siyaasadda lagu geliyay daawo waan arkayaa ugaaskoodii wuxuu yidhi ina Cumar Geele dowladda Jabuuti baa dhexdhexaadisay macnaheeda oo soo celisay arrinkii hore ee lagu mamnuucay waad egeysanaysay ugaaska waad dhegeysanaysay miis wuxuu ka dhigay in Jabuuti amarka ku siisay in Cumar Geele amar ku siiyay Ciro madaxweyne Ciro sidaas ugaaskiisii yiri waana la dhexdhexaadiyay saasaan ku heshiinay in la joojiyo sidaas يا تنكو قليه تنياكو قليه وحنا سهر نوبل بيس برايسكا ادو ابلاي كريسان دور سنه كبعدي نينكي جيس كان نبد كان دغاي ايان اصلاحين I don't know حي كدالك نقطه لكن سو فار عده دورتي اي ادس اغدغتي سام عبد الرحمن توركو كانسدي ايغو هبينكي قريga xabada ula baxay iyo madaxtooyada uu soo galay no different dadkii 30 sano 20 sanadood ku daba socday ee ka kacay ku lahaa ee dhinacyada ku hayay xabad maad ka keenin khadar baad ka keentay Soomaa yes qabiilkaaga iska fogay laakiin maxaad samaysay nin kaliya oo professional wasiiradaada balka eeg kii hawada wareerta Soomaaliland dhageysta gudbiya kii hawadaanu baryanaa dhowr bilood war civil aviation authority samee kuwaasa la xiriiri kara ee kaawa iyo cid walba la xiriiri kara wasiir lama xiriiri kara an recognition illa maanta wasiirka aqoon baa uma leh bal nin kaliya aqoon ku kada war ciidankii booliska ee aad u sameyn kar lahaydeen muraayad sanadka haddii ay 30 sanadood loo sameyn kari waayay waxa protection booliska oo xabada nool 30 sano dadka lala dhacayo maantana ay bilaabtay in lala dhaco war ma waxa loo sameyn kari waayay muraayada ay dhagax iskaga celinayaan ma gaasta indhaha kaga ilmaysiisa Taiwan ka dalban kari weydeen way badbaad lahayn dhanaysa walaal ilaahay u qoray oo ay kulli badbaadeen ay dhiman lahaayeen laakiin idinka aad u idin timaadeen haddaad eegto wasiiradaada ama xukuumaddaad keensatay ninka dhana booliska aad u dhiibtay waa military waa la kuwi ka soo yaacay laascaanood xasuusantay laascaanood ka soo yaacay waxba baalaha geeyaan xasuusan waa kuwi samaha ayaad u dhiibtay booliskii ninkii xaggan laga helaa waa dambiile wuxuu ka soo cararay xaggan laascaanood ayaad booliska u dhintay oo aan booliskii nabadgelyo waxba ka garanay maxabad la rida mooyaane waay waxaan u arkay inay kugu dumayso hana eersan ورندم بقى 14 سنوات كل سؤال جمسي أما خير نمها كل سؤال قطع أما حسبي أما مبدأ واحد دونتو كل سؤال جس هل قد دور سنة دكتور أدو النفط هذا إيش رفض هذا هل قد دور سنة دكتور بل ده كان وحدي بتي دعوة ده كان وحدي بتي دعوة بف بروفيشنال اللي بكتيره دمان كل مية فرديا كمان دي ميال كاستا وهذا كل مية وأنا ما كين challenge كله تشري يمكن challenge كله تشري يدودي تميل والبا سواها what do you think وعبد الرحمن تركي على عستي كله تشتي challenge كpower struggle كله تشتي power challenge كله تشتي سوى ذا ديبي لبيت باتين سكوبيت باتين أديك على هاي هون حارسته taladii dhaaftay Cabdiraxmaan Tuur oo calan cas oo kula jirta dagaal uu isu dhiibay ee ay dabadna kaarka ku rogeen isku mid batiin sam how you gonna survive
عرّو مدحوين عرّو I respect you لكن ويغني كارتدا ماتماتيك دو رخصي قادو هدي كلنا هذا كوتال غير أوضل هرنا ونشيء غير أوضل مددين با سياسة غير أوضل يدد كاني أسكو حنايا أبال بكولا هايا وكل سؤال كمان سؤالها نكويديننا أوي مدحوينك حقينكي نكي بري النبدية أوي ما عينو وهابن وسير هذا نكي وقفر فرعون ونكي ما تسع سنين من الشيخ علي عيالي الشيخ البلد كي ليه what's going on متكلم منو أركتشرين يسووا منو أركتشرين يسووا يسع سنين سما ما حاربتي لبعض السنة وحياد تشيف يتشوك نوجود ديتي تشيف يتشوك وجود ديتي ومضى كمانان hundreds of thousands ما هاي هيد